بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada barnaamijka aan idinku wahaynana waxa kamid ah kooxda STC ee Imaaraadka oo taageero ee dalka Yemen oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen gobolada Al-Mahra iyo Wadi Hadramaut isla markaasna ay ku tala jiraan in ay ka go'aan dalka intiisa kale ciidamada Suudaan ayaa lagu soo waramayaa inay isaga baxeen magaalooyinka Babanusa iyo Hajliij ee gobolka Kordofan waxaana ay ka tallaabeen ciidankii halkaasi ka baxay xadka Suudaanta Koonfureed iyadoo kooxda RSF ay isku ballaarinayso deegaano hor leh Khalid Bishcal oo ka mid ah mas'uuliyadda sarsare ee ururka Xamaas oo ka hadlay qorshaha lagu doonayo in hubka looga dhigo iska caabinta Gaza Iran oo war la yaab leh ka soo saartay diyaaradeeda daroonka ismiidaamiyaha ee wacdaraha ka dhigtay furimaha hore ee dagaalka oo dalal Mareykanka oo ka mid yahay ay minguurinayaan si ay ugu adeegsadaan dagaalada waddanka Suudaan halkaasi oo warar waaweyn ay ka soo baxayaan ciidamada militariga Suudaan ee uu hogaamiyo General Abdul Fattah al-Burhan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka baxeen deegaano ku yaala gobolka Kordofan gaar ahaan magaalada Babanusa oo dagaalo culus ay ka socdeen iyo sidoo kale magaalada Hajliij ee koonfurta galbeed ee Kordofan waxaana la sheegayaa ciidankaasi inay ka tallaabeen xadka iyagoo galay Suudaanta Koonfureed waxaana ay wataan dhammaan qalabkoodii dagaalka ila ka tirsan maamulka deegaanka ayaa ku tilmaamay ka bixitaankan xeelad military ila wareejadu waxa ay sheegeen in ciidanka ka baxay Babanusa iyo Hajliij loo wareejin doono gobolka Niilka Cad ee xuduudda la leh Suudaanta Koonfureed warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in RSF ay isku fidinayso gobolada Kordofanta galbeed oo ah mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee shidaalka laga soo saaro shirkadaha shidaalka soo saara ayaa shaqaalahoodii kala baxay deegaanka Hajliij waxaana la sheegay in loo qaaday dhanka Suudaanta Koonfureed Ahmed Rahmatullah oo ah afayeenka maamulka Kordofanta Koonfureed ayaa sheegay in inkastoo ciidanku ay ka baxeen Hajliij sababo xeelad dagaal haddana weli ay sii wadi doonaan dagaalka ilaa Kordofan ay noqoto qabuurihii RSF wuxuu sheegay in qoysaska ciidamada lagu dhibaateeyay Babanusa iyo Hajliij Rahmatullah wuxuu sheegay in qabsashada RSF ee Hajliij ay si weyn u dhaawacayso dhaqaalaha gobolka isla markaasna kumanaan rayid ah ay u qaxeen Suudaanta Koonfureed dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Darfur ahna hogaamiyaha jabhadda SLA Mini Arko Minawi ayaa fariin u soo dhigay baraha bulshada wuxuu ku eedeeyay RSF in rag iyo dumar ay qafaasheen oo ay ku qafaasheen magaalada Al-Fashir xubnaha jirkooda ay kala baxeen si loogu badbaadiyo askarta RSF ee dagaalka ku dhaawacmay waxaana uu cambaareeyay falalkaasi oo ugu yeeray dambiyo arxan daran haddaba xaaladdan waxaa lagu soo waramayaa inay u muuqanayso dagaalada ka socda Kordofan inay ku gacan sareeyaan RSF waxaana wararku sheegayaan in ciidamo aad u fara badan oo calooshado shaqaystayaal ah iyo hub casri ah isticmaalayaan isla markaasna ciidanka militariga Suudaan si weyn looga gacan sareeyo gobolkaasi laakiin waxay ku tilmaamayaan ciidamada dawladdu tilaabadan inay tahay mid xeelad dagaal ah wararka Suudaan intaas aynu ku dhaafno bal markana aynu eegno xaggaasi iyo waddanka Yemen halkaasi oo war weyn xalay uu ka soo baxay sida la socoteen dagaalo culus ayaa ka dhacay Al-Mahra iyo Hadramaut haddaba wararkii ugu dambeeyay golaha Koonfureed ee kala guurka Yemen ee STC loo yaqaan ee Imaaraadka u taageero ayaa xalay waxay ku dhawaaqeen in ciidankooda si buuxda ula wareegeen maamulka gobolka Al-Mahra iyo Wadi Hadramaut ee bariga dalka isagoo ka hadlayay kulan ballaaran oo lagu qabtay caasimadda kumeel gaarka ee dalka Yemen ee Cadan gudoomiyaha STC Aydrus Al-Zubaydi wuxuu sheegay in waxa ugu yeeray guulaha ciidamada Koonfureed ay tahay dhamaystirka xoreynta Al-Mahra iyo Wadi Hadramaut Al-Zubaydi oo ah gudoomiyaha STC kana mid ah toddobada ku xigeen ee
gudoomiyaha golaha hoggaanka madaxtooyada Rashiid Al Cariimi ayaa ku dooday in koonfurta Yemen ay ka go'ayso waqooyiga oo dib dowladnimadeeda ay u soo ceshanayso. Wuxuu sheegay in koonfurta ay hortaal marxalad masiiriya oo ay ku qasbeen xaqiiqooyinka siyaasadeed iyo military, isagoo xusay in dadka koonfureed ay sameeyeen allabaryo waaweyn si loo gaaro marxaladan go'aaminta leh. wejiga xiga wuxuu yiri wuxuu noqon doonaa dhismaha hay'adaha dowladda cusub ee ugu yeeray koonfurta Carabta. Axadii hore STC waxay la wareegtay dhul ballaaran oo ka tirsan Al-Mahra kadib markii ciidamo badan ay u suurto geliyeen inay gudaha u galaan gobolka labaad ee ugu weyn dalka Yemen. waxaana la sheegayaa in halkaas sidoo kale uu ku yaal garoonka caalamiga ee Al-Khayda iyo dekado muhiim ah. dowladda Yemen wali kama aysan hadlin hadalladan ugu dambeeya ee Zubaydi ee goosashada ah. ha yeeshee madaxweynaha golaha hogaaminta Yemen Rashiid Al Cariimi ayaa STC horey wuxuu ugu eedeeyay tillaabooyin halis ku ah midnimada go'aanka military, iyadoo dhinacyadu isu diyaarinayaan wejiga xiga ee go'aan qaadashada amniga iyo militariga, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Saba. isbedeladan cusub ayaa waxay dhacayaan maalmo kadib howlgalladii ballaarnaa ee STC ay ka fulisay Wadi Xadramuut, halkaasi oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo xarumo military iyo kuwa shidaalka laga qodo, iyagoo sidoo kalena gacantooda geliyey inta badan gobolka Al-Mahra. haddaba xaaladdan waxay u muuqataa waddanka Yemen inuu laba u kala qaybsami doono. maxaa yeelay ciidankan STC-da markii horena waxay ka mid ahaayeen dowladda caalamka aqoonsan yahay oo ninkan Aiduris Al-Zubaydi madaxweyne ku-xigeenadu ka mid ahaa. laakiin mar walbaba calankooday wateen, xitaa markuu xafiiska fadhiyo. haddaan dib idin tusano sawirkiisa, calanka koonfureed ayuu wataa, taasi oo ka turjumaysa go'aanka ah inay ka goostaan waddanka intiisa kale. markaad eegto madaxweynaha, calankii Yemen ee 1990kii markii la midoobay la qaatay ayaa dhinac socon, laakiin Al-Zubaydi calanka STC ayuu wataa. xaaladda marka waxaa lagu macnaynaya inay tahay xaalad waddanka Yemen saddex qayb u qaybinaysa. qayb waa xuutiyiinta oo haysta magaaladii caasimadda ahayd ee Sanca iyo inta badan gobollada waqooyiga, iyo qayb ay qabsanayso STC, inkastoo dhulka intiisa badan ay tahay laga soo bilaabo Al-Mahra ilaa iyo Xadramuut ilaa iyo Sanca. dhinaca kale qabaa'ilka Xadramuutka ayaa iyaguna waxaa la sheegayaa inay abaabul ballaaran wadaan oo ay doonayaan inay dib u qabsadaan gobollada laga qabsaday. maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin gobolka Xadramuut ayagu inay leeyihiin oo qolyahan ay ka soo duuleen dhanka Cadan, inkastoo laakiin la sheegay STC inay isticmaalayso diyaarado darona iyo hub casriya. waxaana arrintan si weyn u taageeraya Imaaraadka Carabta. arrintan waxay ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo dhaqaaqyo ay socdaan. waxaa hadda ku sugan magaalada Riyadh oo shalay gelinkii dambe gaaray madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki. waxaan halkaasi ku qaabilay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. 2 maalmood ka horna waxaa tegay Sacuudiga amiirka waddanka Qatar. marka xaalad ayaa socota. RSF waynu aragnaa oo dhan ka doonaysa inay goosato waddanka Suudaan dhanka gobollada Darfur iyo Kordofan. haddana waxaynu arkaynaa STC oo doonaysa waddanka Yemen inay qayb goyso. arrintan marka waxay noqon kartaa baa leeyahay xaalad uga sii darta waddanka Yemen marka la eego, bacdama dhinacna ay ka jirto Al-Qaacida iyo kooxaha magaca diinta ku dagaalama oo iyaguna qaybo badan oo ka mid ah waddankaasi, inkastoo laakiin aysan ballaarnayn, laakiin gacanta ku haya qaybo ka tirsan waddankaasi. ilaa hadda lama oga xuutiga waxay samayn doonaan, laakiin waxaa la leeyahay xuutiyiintu dhaqaaq ballaaran bay wadaan. waxayna aaminsan yihiin ciidankan inuusan intaa ku ekaan doonin, inkastoo laakiin STC ay u taallo dhismaha dowlad. marka wuxuu ku soo kordha xaaladda waddanka Yemen waynu arki doonaa. waa hagaag, waxaan u gudbaynaa goor dhow Iiraan oo sheegaysa in diyaaradeeda Shahiid 136 ee ismiidaamisa oo bariga dhexe dagaaladii ka dhacay wacdana ka dhigtay iyo dagaalka Ukraine, Mareykanku hadda inuu bilaabay inuu minguuriyo diyaaradaasi. haddana waxaa la sheegayaa ciidan gaar ah Mareykanku inay u sameeyaan diyaaradahaasi.
xagga qasa aynu eegno iyo hadal ka soo yeeray mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee ururka xamaas madaxa arrimaha dibadda ee ururka xamaas qaarid mishcal ayaa waraysi uu siiyey telefishinka aljaziira habeennimadii xalay wuxuu sheegay in qaza aad looga baahan yahay gargaar dhammaan noocyadiisa kala duwan isagoo tilmaamay in tani ay tahay waxa hoggaanka dhaqaaqa uu ka shaqaynayo mishcal wuxuu carabka ku adkeeyey in gurmadka qaza uu yahay shardi lagama maarmaan u ah in loo gudbo wejiga labaad ee heshiiska lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka waxa uu sheegay in maamulka qaza uu noqon doono mid falastiiniyiintu ay yeeshaan isla markaasna falastiiniyiintu iyagu ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda xukumaysa mishcal waxa uu ku nuuxnuuxsan in qatarta ka imaanaysa Israa'iil ay tahay mid weyn laakiin qatartu aysan ka imaanayn qaza isagoo caddeeyey in hubka dhigista dadka falastiiniyiintu ay la mid tahay niyad jab iyo awoodda oo laga qaadayo way Israa'iil waxa la sheegayaa dhawaan inay tageen wadaado muslimiina arrintaas waxa aad uga carooday imaamiyada waddanka Senegal oo ka mid ah wadamada galbeedka qaaradda Afrika haddaba aynu eegno sheeko ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu laga leeyahay dalka Turkiga ururka imaamiyada iyo wacdiyaasha waddankaasi Senegal ayaa aad u cambaareeyay booqasho koox culimo muslimiin Afrikaan ay ku tageen Israa'iil ururka ayaa soo saaray bayaan uu kaga hadlayo booqashada koox culimo Afrikaan ah oo ay ku jiraan kuwa u dhashay Senegal ay ku tageen Israa'iil bayaanka ayaa waxa uu sheegay in culimada Senegal ee ka qayb gashay wafdigaasi Israa'iil tagay aanay matalin imaamiyada dalka iyo shacabka Senegal waxay hoosta ka xariiqeen in booqashadu si cad uga hor imaanayso mowqifka rasmiga ah ee dowladda Senegal iyo kan ciidanka waa raali ahada waa kan culimada diinta ee dalka ee ku aadan arrinta Falastiin ururka wuxuu xusay in Senegal oo haysa imika gudoomiyaha guddiga qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha aan arrintaasi ahayn mid dood geli karta qadiyadda Falastiin oo ilaa iyo markii la aasaasay qadiyadda Falastiin loo dhaqaaqo 1925 arrintan ay mid si weyn Senegal ay u taageeraysa warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in koox imaamiyo iyo wariyaal ka kala socda dalalka galbeedka Afrika ee Faransiiska ku hadla lagu casuumay magaalada Qudus ee la haysto taasi oo qayb ka barnaamij ay abaabushay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa December 1deedii waa bishan wuxuu la kulmay wafdi ka kooban culimo iyo wariyaal ka kala yimid wadamada Senegal, Togo, Ivory Coast, Benin iyo Cameroon waayahay qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno sheekada ugu dambaysa aynu eegaynaa waa Iiraan waxay leedahay diyaaradda halkan ka muuqata ee shahiid 136 oo wacdana ka dhigtay dagaaladii Israa'iil ee la gashay Iiraan iyo sidoo kale dagaalada Xuutiga iyo Israa'iil dhexmaray dagaaladii Hezbollah iyo Israa'iil dhexmaray iyo sidoo kale dagaalka Ukraine ayaa waxa leeyahay waxa minguuriyay wadamo Mareykanka uu ka mid yahay haddaba in eegna sheeko arrintan ku aadan oo la yaab leh oo ka soo yeertay Iiraan afayeenka ciidamada qalabka sida ee dalka Iiraan ayaa sheegay in nuqulka diyaaraddan ee Mareykanku uu minguuriyay ay tahay mid markaasi ka turjumaysa waxtarka diyaaraddan shahiid 136 isla markaasna ay tahay mid ka turjumaysa aqoonsi caalami ah oo sii kordhiya oo la siinayo awoodda jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan gaar ahaan dhanka horumarinta diyuuradaha aan duuriyaha lahayn isagoo la hadlayay warbaahinta Iiraan intii lagu jiray booqasho uu ku tagay madaxafka nidaamka hawada sare ee ciidamada IRGC ee Tehran General Abul Fazil Shakarshi wuxuu sheegay in go'aanka ay dalal Mareykanku uu ka mid yahay ku minguurinayaan tiknoolajiyadda militariga ay tahay mid markaasi muujinaysa in diyaaraddan ay tahay mid Iiraan farsamadeeda horumar weyn ay ka gaartay ma jirto buu yiri sharaf ka weyn markaad aragto quwadaha isugu yeeray kuwa aadka ugu horumarsanaya tiknoolajiyadda oo intay diyaaraddan heleen doonaya in ay minguuriyaan wuxuuna tilmaamay in tani ay tahay tilaabo cadowga uu ku doonayo inay ku buuxiyaan istiraatiijiyadooda kala dhiman wargeyska The Wall Street Journal ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in militariga Mareykanka bariga dhexe u daadgureeyay diyaaraddan kamikaziga loo yaqaan ee ismiidaamisa
oo dib loo habeeyey taasi oo la sheegayo in loo adeegsanayo dagaalada Mareykanka oo geli karo taliska dhexe ciidanka Mareykanka ayaa dhawaan waxay ku dhawaaqeen dhismaha ciidan gaar ah oo loogu magac daray ciidamada gaarka ah ee hangaralaha ee TFSS loo soo gaabiyo cutub ka kooban dayuuradaha weerarka ee qiimaha jaban ayayna ku hawlgeli doonaan iyadoo la sheegayo in loo adeegsan doono dagaalada waaye marka Mareykankii iyo neytadii iyo reer galbeedkii dhihi jiray annaga ugu horeynay tiknoolajiyadda adduunka ay hadda waxay bilaabeen diyaaradahan Iiraan isticmaalayso in la koobiyey oo la yiri bas weeye bacdama Iiraan ay ku caanamaashay annaguna aan isticmaalno waa hagaag qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo